subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax idaacada Simba Muqdisho qodobada ugu waaweyn waxaa kamid ah Kismaayo ayaa diyaar garowgii ugu dambeysay u gashay doorashada madaxweynaha Jubbaland beesha caalamka ayaa diiday doorashadii dhawaan ka qabsoontay magaalada Kismaayo digniin adagna u dirtay garabka Axmed Madoobe maamulka magaalada Dhuusmareeb ayaa eedeyn culus u jeediyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya damaha ammaanka magaalada Dhuusmareeb ayaa amar lagu siiyay inaysan ku dhex milmin siyaasadaha isdiidina Dhuusmareeb saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shabeellada hoose ayaa ka warbixiyay howlgallada ka soconaya gobolka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay dad u soo qabteen dadkii dhawaan lagu laayay magaalada Baydhabo qabaa'ilka ku wada nool magaalada Baydhabo ayaa looga digay inay qariyaan shakhsiyaadka gacan ku dhiigyaasha wararka dibadda warkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah khasaare xooggan oo ka dhashay qaraxyo ka dhacay dalka Afghanistan subax wanaagsan ismaqal wanaagsan waa taariikhdu ay ku astaysan tahay 18 bishii 8 Agoosto sanada 2019 inta maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa u diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan subaxnimadan soo saarkii tabintan waa aniga Aweys Bashiir Cabdiraxmaan Kismaayo waxaa gashay jawi siyaasadeed oo ka duwan kuwii hore iyadoo si weyn looga dareemay u diyaar garowga doorashada madaxweynaha khamiista soo aadan ayaa la qorsheynayay in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland kadib markii ay soo gabagabeeyeen guddiga doorashooyinka wareegii koowaad ee la xiriiray doorashada guddoonka baarlamaanka waxaana magaalada Kismaayo haatan ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee la xiriirta doorashada madaxweynaha cusub ee maamulka Jubbaland iyada oo magaalada si weyn loo adkeeyay amnigeeda guud waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada AMISOM gaar ahaan booliiska iyo ciidamo gaar oo ka marqaata madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Axmed Madoobe iyada oo ay si weyn looga dareemayo magaalada doorashada madaxtinimada ayaa waxa magaalada Kismaayo u diyaar garoobaysa doorasho laba jiha iyadoo golaha la magacaabay isbedel doonka dhankooda ay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha ayaa dhanka Axmed Madoobe waxa ka soconaya iyaguna qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland magaalada Kismaayo ayaa doorashada guddoonkii dhawaan ka qabsoontay waxaa si wada jira u soo laabtay guddoonkii hore ee baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyadoona taasi lagu micineeyay in ay ka dhigan tahay in Axmed Madoobe mar kale dib u soo laabtay intaan doorashadaana bilaabanin ka hor ayaa waxaa si weyn looga digayay in doorashada maamulka Jubbaland ay noqoto mid caleema saar ah isla markaasina si tartan la'aan dib ugu soo noqdo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhanka kale beesha caalamka ayaa war ka soo saartay doorashada guddoonka baarlamaanka Jubbaland iyadoo digniin adagna u dirtay guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo qoraal u diray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa lagu sheegay in haddii aan la qaadanin talooyinka ay codsatay beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijo kasta oo hananka doorashada Jubbaland ka timaada guddiga doorashada haddii uusan waxa ka qabanin walaaciyada muhiimka ah ee ay qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta waxay beesha caalamka ay cadeynaysaa in aysan jiri doonin natiijo kasta oo ka timaada doorashada maamulka Jubbaland inay taageerto iyadoo aanan laga maarmin taageerada maxalliga ah beesha caalamka ayuu sii raaciyay James Swan qoraalku u diray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland qaramada midoobay ayaa sheegtay in Jubbaland aysan ka dhicin doorasho xor iyo xalaal ah isla markaasina la doonayo in la raaco nidaamka doorasho si loo helo taageerada beesha caalamka laga maarmaanka u ah hanaanka doorasho iyo dowladnimada Mr James Swan ayaa tagay magaalada Kismaayo dhowr jeer isagoona kulamo la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe kulankii ugu dambeeyay oo la qaatay ayaa waxa uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan James Swan ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo guddiga doorashooyinka ku dhiirigeliyay inay wax ka bedelaan doorashada qaabka ay u socoto guddiga doorashooyinka waqtina la siiyo dhammaan shakhsiyaadka qusaysa arrimaha la xiriira doorashooyinka ee doonaya inay u tirtimaan xilka madaxweynaha Jubbaland balse Axmed Madoobe ayaa waxa uu ugu jawaabay in arrinta gacanta ugu jirto guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland
taasi oo kaliftay in wakiilka qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya warqad khaas oo u diro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland Xamse waxa uuna ugu digay in doorashadaasi sida haatan ay u socoto ay ku qabsoonto taasi uu James Wan ku tilmaamay natiijo aanan la taageeri karin beesha caalamkana banaanka ay ka tahay dhawaan ay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya warqad la mid ah ka soo saartay doorashada Jubbaland ayna ku tilmaamtay in doorashooyinka ka soconaya magaalada Kismaayo ay yihiin kuwa waxba kama jiraan maadaama aan loo marin wadada sharciga ahayd maamulka magaalada Dhuusmareeb ayaa eedayn culus u jeediyay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo dhan kale laamaha ammaanka magaalada Dhuusmareeb looga digay inay ku dhex milmaan siyaasadaha ka taagan magaalada Dhuusmareeb Yaxya Ciise Xuseen ayaa soo koobaya maamulka magaalada Dhuusmareeb ayaa dhaleeceyn u jeediyay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya kadib markii wasaaradda iyadoo aan wargelin maamulka magaaladaas uu wafdi ka socday wasaaraddu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusmareeb gudoomiyaha magaalada Dhuusmareeb Nuur Cilmi Cabdulle ayaa sheegay in waqti badan ay isla qaateen wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye wafdi imaanayana uusan u sheegin waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u timid dib u heshiisiinta Galmudug balse taasi aysan muuqan maadaama ay halis amni tahay marka la kala garan waayo dadka ku sugan magaalada Dhuusmareeb iyo dadka degan guryaha magaalada digniino ayuu sheegay inay maamulka soo saareen isla markaana baaritaano lagu sameynayo guryaha iyo dadka ku sugan magaalada Dhuusmareeb ammaankana gacanta ay ku qabanayaan laamaha ammaanka ee magaalada Dhuusmareeb sannahay inaan qabsano shaqadii aan lahayn waxaan leenahay hal laga daayo qaabilaad xumada iyo sumcad darrada waxa keenaya dhanka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka xalay waxaan isku gaarnay xilli dambe runtii nooma sheegin wafdi imaanayo diyaarada ku imaanaya oo la soo dhaweynayo saaka 2 saacna waxa la igu wargeliyay baabuur diyaarsan iyo maxaan ku iraahdaa bulsho imaanaysa waxaasna wax lagu wada shaqeyn karaa ma ahan waxaan leenahay shaqada midda leedihiin qabsada midda aan leenahana halla faraha laga qaado waxaan kaloo intaas ku daraynaa anagu digniino ayaan dirnay ogeysiis ayaan bixinay waxaan ugu dan lahayn in cadawgu naga faa'iideysan in la kala aqoon waayo gurgaan wax degan in la kala aqoon waayo gaarigan cid wadata ma aqbalayno guryaha waa la kontrooli doonaa gurigii sharci darre lagu kireeyo oo aan caasimada sidii ugu tala gashay sharcigeed aan soo marina dib baa loogu soo celi doonaa gaariguna sidaas oo kale weeyaan waxaan rabaa halkan inaan ka qeexo Soomaalidu waxay yiraahdeen ninbaa wuxuu yiri qayla yeertay markaas wuxuu yiri war masaajidka asagay ka yeertay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo loogu tala galay Galmudug inay ayagu heshiisiyaan gogashana ku baaqay waxay ka shaqeynayaan oo ay ku dhex jiraan wax ayagiiba heshiis darro keenaya in la is hor istaago la mudaharaada keenaya waxaan nahay maamulka caasimada wax aan kala socono barnaamijyada ay wadaan ma jiraan gobolku sidoo kale weeyaan mana ku qanci doono hal laga daayo walaalaha yimid waxaan leenahay soo dhawaada qaladka jira adinku ma lihidin gurigiina ku soo dhawaada Dhuusmareeb ku soo dhawaada quruxdii aad idin rabnana qaladku wuxuu ka dhacay qoladaas aan sheegnay magaalada Dhuusmareeb waxaa ka socda qabanqaabada furitaanka shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayna garwadeenka ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya waxaana laamaha ammaanka ee maamulka Galmudug ay sheegeen in si aad loo adkeynayo ammaanka magaalada Dhuusmareeb inta uu socdo shirka dib u heshiisiinta ee Galmudug Yaxya aad baad u mahadsantahay saaxib saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka warbixiyay howlgallo ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka wadaan gobolkaas Maxamed Cabdullaahi Raage dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa howlgalka AMISOM ayaa dardar gelisay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab waxa ayna bilihii la soo dhaafay badi howlgalladan ka dhacayeen gobolka Shabeellada Hoose ciidamada wadajirka ah ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose sida Bariir, Sabiib, Caanoole iyo degmada Owdheegle kala wareegay Al-Shabaab dhammaan deegaanadaas ayaa badi waxa ay yihiin deegaano istiraatiiji ah waxa ayna leeyihiin buundooyin sahlaya in la isaga kala goosho qeybaha kale ee gobolka Shabeellada Hoose gaashaanle Cali Aadan Shuuriye oo ah taliyaha guutada 14 Oktoobar oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose waxaana sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka aysan wax iska caawin ah kala kulmin dagaalyahanada Al-Shabaab gaashaanluhu waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalkii Owdheegle ay khasaare fara badan ku gaarsiiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab
islamarkaana ay dil iyo dhaawac u geysteen in ka badan 100 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab. taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyeen isku socodkii iyo ganacsigii Owdheegle uu dib u soo laabtay, xaalkuna hadda uu yahay mid degan. mar uu ka hadlayay dadka deegaanka iyo soo dhaweyntii ay kala kulmeen ayuu sheegay taliyuhu in si wanaagsan ay u soo dhaweeyeen, waxauna ballan qaaday inay caawinayaan dadka ku nool deegaanada ay kala wareegeen dagaalyahanada al-shabaab. sidaa la socotaana ayaamahan waxaan ku jirnay howlgallo gobolka Shabeellada Hoose, khaasatan degmada Owdheegle oo hadda aan ku sugannahay. dagaaladii aan soo qaadnay ilaa iyo hadda wax iska caabin oo xoogan oo ala kulana ma lahan. maleeshiyaadka gobolkoodii waa sii dhacaya, wax awood ay hadda leeyihiin ma jiro. isku day yar ay sameeyeen, waa fashilinay. ilaa iyo maalinka maanta inta ila wareedyo aan ku kalsoonahay ku dhow aan ku helayno, waxaa khasaare gaarsiinay ilaa iyo 60 meeyo waa kaga geeriyoodeen, dhaawacoodina kontomeeyo kor u dhaafa. ilaa iyo haddana howlgalkii waa sii socdaa oo hadda waxaan ku sugannahay degmada Owdheegle. dadkii shacabkana guryahoodii iyo dukaamadii iyo cadaadiskii loo korhayna waa ka dulqaadnay sida aad la socotaan. hadda taana dukaamadoodii iyo ganacsigadii dib u bilowday, isdhexgalkii bulshadii shaqadeena inaad socotaa. Owdheegle ku sugannahay. dadka deegaanka Owdheegle awalba dad waxay ahaayeen iska cabursan oo si xooga lagu haysto, maadaama aan ka dulqaadnay nabaadiidkii. waxaa kala kulannay soo dhaweyn fiican, si fiican inoo soo dhaweeyeen. anagana waa shacabkii aan u dagaalameynay oo nafteena aan u hurnay inaan u dhimano. wixii caawimaada oo shacabka caawinayna waa si caawinayna. maalmaha soo dhan waxaa rajaynaynaa inay soo gaarto taakuleen loogu talagalay. dowladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa AMISOM ayaa horaantii bishan August waxa ay dagaalyahanada al-shabaab kala wareegeen deegaanka Owdheegle oo istiraatiiji u ahaa al-shabaab, waxaana al-shabaab arbacadii lasoo dhaafay ay sameeyeen isku dayo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan deegaanka kadib markii 2 gaari oo ismidaamin ah ay ku wareereen baro control oo ciidamadu ay ku leeyihiin halkaas. weeraradaas oo dhaliyay khasaaro fara badan oo soo kala gaaray dhinacyadii dowladda Soomaaliya iyo al-shabaab ayaa waxa ay al-shabaab ku doonayeen inay dib ugu qabsadaan degmada Owdheegle, balse ilaa iyo hadda waxaa dowladdu ay gacanta ku haysaa degmada Owdheegle. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in dad u soo qabteen dadkii dhawaan lagu dilay magaalada Baydhabo. guddigii uu dhawaan u saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya la xiriiray baaritaanka dadkii shacabka ah ee 10 qofood ku dhawaad lagu dilay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay soo gabagabeynayaan baaritaanadii ay ka wadeen magaalada Baydhabo ee la xiriirtay qaabkii uu dhacay dilka shakhsiyaadkaasi oo ka mid ah ganacsida Cali Marguus oo si weyn looga yaqaanay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Baay. wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad loo soo qabtay dhacdadii ka dhacday magaalada Baydhabo, isla markaasina guddigu uu wado baaritaankii ugu dambeeyay. goordhown ay soo gabagabeyn doonaan warbaahintan ay la wadaagi doonaan shakhsiyaad ku xiran, halka kuwa kalena weli lagu daba joogo. ويجان بلاشي يمي وذنا بارس سابسن عندوي سجارة كلين بلون سجارة كلين جالون هذا بنان شيء سابسن عندي لو كل سجاي سجاي طبعا وديك بارس تسوي وذا ودي نسكجرا هاي وزير جنرال خير الملتري بوليس لازم نامو في دور كده وزارة الدهان ما هو وزارة الدستورك وزارة العدالة والأمنية. جوديان أولاً كلا كلمة هنا إن بارس زوجان هذا تاني وانضمام صارن. طبعاً بارس تقول الدرجة ما يلهلين ليس أو لكتوه ما هي من بنياش خلق جيسين. قاركم مثل إذا البوليس ك يحقق بدن ما لهذا كحقق. قاركم مثل الورد السعودي والورد التيراني والوبير وقراننا ما يشغلن بشوينت أو كونفرد البلد إن لم يخبروا دون العقاب ضدنا. dhanka kale waxa ay ka hadleen guddigan in aysan u dulqaadan doonin shakhsiyaadka qarinaya ama qabaa'ilka magaalada Baydhabo ku dhex qarinaya dadka gacan ku dhiigliyaasha ah ee dadka shacabka ku laayay gudaha magaalada Baydhabo. باقي أو guddigan kala galeejar inuu jeediyaan baaqa soo lan walba oo dambiile oo dambi galay ku gal qof muwaadin oo nafagal badalo ma doontin uu soo dhaxgal qabiilka oo ka dhuumada qabiilna ma doontin uu soo dambiile
kahobowda oo usii qabilaan dafaca go-aanka oo min madaxweyne ilaa iyo guddiga isla dhawaana ma ahe lanka dambiile gala lanka dembe galo dambiile in dambidii usuheeli kajaabo qabilan saarna lanqarna reer hebel ay galeen lanqarna dembel qofka galay in la hadlabada sharciga la horsheena oo isu mutaysdoona la ogaado waana way filaanahay saacadoo hani aadan naga tooy geedka gudaashay baqiyay saacadoo hani aadan mayba gabagabowla doonaa baaristan iyo howlgalka dareera ilaa iyo qofkanka dambe oo laka tuhumahay howlun in lakalahay dambuuma odaana may ballan qaadanaya in guddiga hameen iyo bashaqeeyo howlis wadada marka baaqasay ma fadaan qof walba in gurigayinka gala in lankii wada dilo faday isla haay ima qabiil labadala galaasa odayaashii dhaqankala la kulamay iyo sayaxeen ogolaadeen in oo lan qabiilayo lan dambiilayo qabiilhaan guddigan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya u xil saaray baaritaanka dilka ganacsada cali markuus iyo shakhsiyaad kale ayaa maalmihii lasoo dhaafayba waxa ay ka wadeen howlahooda shaqo magaalada baydhabo iyada oona haatan laga dhursugayey inay warbaahinta la wadaagaan waxyaabaha baaritaankooda ka soo baxay halka warkaasi idinkaga imaanayaan waa idaacadda simba muqdisho. wararka dibadda kabul qarax ayaa ka dhacay, khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay. bam ayaa ka qarxay hol ay ka socotay xaflad aroos oo ku yaala magaalada kabul ee caasimada dalka afghanistan, waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. goobjoogyaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ahaa ismidaamin ka dhacday gudaha howlka ay xafladda ka socotay, waxa ayna intaasi raaciyeen inay arkayeen meydad daadsan gudaha howlka. qarax waxa uu dhacay fiidnimadii xalay, waxa uuna ka dhacay goob ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ee shiicada ah. ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka. kooxda taalibaan ayaana iska fogeysay weerarkaas ka dhacay galbeedka magaalada kabul. mintidiinta sunniga sida taalibaan iyo kooxda khilaafada islaamka ayaa si joogto ah waxa ay u beegsadaan shiicada laga tirada badan yahay ee afghanistan iyo bakistan, waxaana haatan weerarkani uu kusoo aadaya xilli taalibaan iyo mareykanka ay wada hadal nabadeed ay u socdaan la doonayo in lagu soo afjiro colaada 20 sano ku dhawaad ka socota gudaha dalka afghanistan. waxaase yeeshee taalibaan ay shaacisay in weerarkani xalay ka dhacay xafladda aroos aysan taalibaan ka dambeynin aanan loo qabsan karin.